بسم الله السلام عليكم سؤال عشان اساعدك غالي waxaan rajaynayaa fiicantiin soo dhawaada videogeena maanta waxaan rabaa inaan sameeyo barnaamij cusub kaasoo aan ugu magacdaray xalqadaha nafis nololeed waa barnaamij cusub xalqadaha nafis nololeed ku soo dhawaada ma jirtaa xikmad qarsoon oo ku dhex taal rafaadka iyo raadka noloshaada qof walba waxa uu leeyahay rafaad iyo raad u gaar ah asiga noloshiisa ma jirtaa dhabar jab oo aan u baahannahay inaan ka dhigano buundo oo aan ka talaabsano ma jirtaa sheeko aan la sheegin oo ku jirta qalbigaaga ma doonaysaa inaad neefsato waa halka ay ka bilaabanayso safarkeena xalqadaha nafis nololeed ma jirtaa xikmad qarsoon oo ku dhex taal rafaadka iyo raadka nolosheena ma jirtaa dhabarjab oo aan u baahannahay inaan ka dhigano buundo oo aan ka talaabsano ma jirtaa sheeko aan la sheegin oo ku jirta qalbigaaga ma doonaysaa inaad neefsato ma doonaysaa inaad nefisto ma doonaysaa inaad dareentid inaadan keligaa ahayn ma isku aragtaa inaad keligaa tahay ma doonaysaa wehel iyo walaal waa halka ay ka bilaabanayso sheekadeena waa halka ay ka bilaabanayso safarkeena xalqadaha nafis nololeed ku soo dhawaada waxaanu soo bandhigaynaa xalqadaha nafis nololeed maxay tahay waa fikir qoto dheer waa iftiinka qalbiga waa iftiinka nolosha sirta qalbiga waa goob aad ku neefsan karto ma ahan keliya sheekooyin waa muraayad aan isku dhex aragno aan isku dareenno aan isku baranno waa qisooyin dhab ah oo ka hadlaya kalsoonida khiyaanada qalbijabka iyo guusha jacaylka xiriirada burburay iyo kuwa wanaagsanaaday waa cashar iyo cibri qaadasho ay noloshana siinayso waan kugu soo gudbinayno si daacadnimo leh waxaanu ka hadlaynaa waalidnimada iyo waanada waalidnimo ay xambaarsan tahay micnaha iyo masiirka mustaqbalkeena ulajeedada iyo hadafka xalqadaha nafis nololeed maxaa ulajeedaa oo aan ka leenahay maxay tahay sababtaan u sameyno waxaan rabnaa inaan abuurno saameyn dhab ah waxaan rabnaa inaan dhisno geed rajo kaasoo ka baxa dhulka adag ee nolosha hadafkeena koox ahaan ma ahan inaan helno daawasho badan balse waa inaan helno qalbi taabasho badan waxaan rabnaa inaan qof kasta oo daawado dareemo inaan la fadhino oo aan la dareemayno dhibtiisa inaad si furan oo aad noola wadaagi kartid dareenkaaga inaan siino cod dadka sheekooyinkooda qarsoon tahay inaan kugu dhiirgelino inaad qadariso rafaadkaaga oo aad ka dhigato awood aad ku horumariso noloshaada inaan ku siino awood aad ku cabiri kartid fikirkaaga iyo aragtidaada inaan ku siino space aad ku nafisi lahayd iyo goob aad ku nasan lahayd saamaynta bulsho iyo yoolka u dambeeya xalqadaha nafis nololeed sidee ayaynu u rabnaa bulshada inaan u saameyno waxaan rabnaa inay noqdaan muuqaaladeena daawada qalbiga markaas dabaad waxaan rabnaa inaad dareento kalsooni inaadan keligaa ahayn inaan xoojino xiriirka bulshada inaan siino fahmo cusub xagga jaceylka xagga qoyska iyo xagga nolosha ujeeddada aan ka leenahay ma ahan inaan daawano qofka oo ka sheekeynaya rafaadkiisa balse waa inaan ka qayb galno nafiskiisa yoolka ugu dambeeya waa inaan gaarno beddel nololeed in qof walba oo nala socda uu fahmi karo qiso kasta oo dhab ah oo xambaarsan tahay awood iyo isbeddel mustaqbal taasoo aan ka qaadanayno cashar iyo cibri qaadasho nololeed waxaan rabnaa xalqadaha nafis nololeed inay noqdaan isha laga helo niyadda iyo naftir rajo iyo sidoo kale in lagu barto sida loogu noolaado nolol mug iyo macno leh nolosha ma ahan mid fudud balse way u qalantaa in la noolaado nala soco soo dhowow soona xaadiri dareenkaaga iskuna diyaari xalqadahan soo socda iskuna diyaari xalqadaha cusub ee nafis nololeed ku soo dhowow waa safarkaaga waa safarkayga waa safarkeena waxaa inoo ballan ah is arag iyo halqada koowaad insha allah ku soo dhow youtube-ka subscribe saaro like saar videoga aad iyo aad baad u mahadsan tahay ku soo dhow channelka subscribe saaro gambalelkana furo si aysan kuu dhaafin xalqadaha soo socda nafis nololeed videogeena maanta waa inaga intaas aad iyo aad baad u mahadsantihiin mac salaam